Croatia ayaa xaqiijisatay inay gaareen wareegga 16 markii ay ku raaxaysteen xulka Argentina ciyaar ku dhamaatay 3-0. Kulanka ayaa lagu kala nastay qaybtii koowaad eber iyo eber iyadoo labada dhinacba ay sameeyeen dhowr halis oo goolal loo fishay. Laakiin goolka koowaad ee ciyaarta ayaa yimid kadib markii laga soo laabtay kaambiyada, waxaana hoggaanka qabtay xulka Croatia iyadoo uu shabaqa u gaadhay laacibka Ante Rebic daqiiqadii 53 markii uu kubad qalday goolhayaha Argentina ee Caballero. Argentina ayaa xidigaheeda waaweyn ee Lionel Messi iyo kooxdeedaba aysan muujinin wax cadaadis oo ay saareen goolka Croatia. Dhan kasta ayaa looga kubad wacnaa xulka Koonfurta Ameerika ka socday, ayadoo raadinaysa barbaraha goolka looga hogaaminayo. Markan waxaa Argentina dib ku sii badiyay kabtanka Croatia Luka Modric oo kubad darbo xoogan dhex dhigay goolka daqiiqadii 80. Ciyaarta oo socota daqiiqadii dheeriga ahayd ee lagu daray waxaa Argentina god ku sii riday xidiga Barcelona u dheela ee Rakitic oo goolka saddexaad u dhaliyay xulkiisa Croatia. Hore xulka Argentina ayaa si aad u adag uga soo baxay kulamadii isreebreebka koobka adduunka ee Koonfur Ameerika, iminkana waxay u muuqdaan mid ay luntay rajadoodii tartanka koobka adduunka ee Russia. Croatia ayaa xaqiijisatay inay gaareen wareegga 16 markii ay ku raaxaysteen xulka Argentina ciyaar